haddaad barida baryadaada u aqbali haddaad baahidaada u sheegata baahidaada uu ku dabooli kulliga nimka dhalinyar baa tir nolosha hadda inii bilaamaysa ininka marka waxyaabo badan baad ka fikiraysaan waxaad alle waxaad ka fikirayso dhan ka ku haya waa kee allah xiriirka maanta inaku ilaahay aan la leenahay intuu leeyahay xiriirkaasi iyo xiriirka mobilka aan la leenahay armidka badan maanta quraanka akhriyayna badan mansintan mobilka eegano danaheenii baan xataa garan laanahay yarka yar ilaahay buu ku xidhnaa mana cabsoonay dhimasho ka baqi maayo boqorkii baa yiri sideen ku khaarijinaan ku dilnaa bal noo sheeg wuxuu saadii dilaysa anaa ku sheegi buu dadka magaalada joogo dhan iskugu wada yeedh aday ku maqleen in maqli maayaan halka soo jooji anigana geedka igu hoos xidh leebkayga qaansadayda iga soo saar deedna igu qiyaas markaad igu ganaysid waxaad ii tidhaahdaa keliya bismillaahi rabbil ghulaam ii dhabu kaydi sidaa aan kuu sheegay haddaad samaysid un baad aniga i dili wailaa ima dili karaysid buu ka yidhi boqorka maxaa ugu daran inuu yarkaa ka dhintuu doonaya waayo dadka oo dhan baa boqorka ku xidhan yarkana wuxuu rabaa dadka inuu ilaahay ku xidho dadka waddanka ku nool oo dhan baa boqorka ku xidhan oo rabbi bay ka aaminsan yihiin inuu yahay inuu rabbi yahay bay u haystaan iyaku waana laga dhaadhiciyey qofkii isaga boqorka amarkiisa diidana saaxirku ku sallidi jiray saaxirka markaa qofka balaayo xanuun ku soo kicin jiray oo saaxirkuna jinka iyo balaayadu la shaqayn jiray yar kan yarna waxa uu doonayaa maadaama dadkani dadkiisii ay yihiin dalkani dalkiisii uu yahay wuxuu rabaa dadkaasi inuu ka gooyo makhluuqa ay ku xidhan yihiin wuxuu rabaa dadka inuu ku xidho ilaahay inuu ku xidho rabbi samaawaati wal-ard sidii buu yeelay boqorku ilaa inuu ka dhintuu rabaaye dadkoo dhan baa la iskugu yeedhay hal qof magaaladii laguma reebin yarkii yaraana meel baa lagu xidhay laabiya qaansadiisii baa laga soo saaray markii lagu ganayeyna ereygii uu dalbaday baa loo yidhi ee ahaa bismi illaahi rabbi lghulaam waxaan ku gannay leebka ilaahay magaciisii magacee ghulaamkaa yar weliba rabbigiisa magaciisii halkaasuu ka galay halkaa buu ka baxay uu dhintay nafta waxaan ka jecelnahoo kale muu jiraa muu jira isagu naftiisiibuu diinu waayey inuu ummadiisa gaalnimada uu ka badbaadiyo naftiisiibuu u horay isagu innakana maanta salaadeenii baa galabgalab ah taan imika intiina idhaahdo intii salaada subax soo tukato gacmaha taaga ma waxaanu malin tiradu inay badnaanayn laakiin toddobada iyo barhka halkaa haddii la idhaha albaabka waa la xidhi waad joogtaa waayo adduunyadaad ka fikiraysaa aakhirada kuguma weyna maanta adiga yarkan yar aakhiradaa ku weynayd diinta agtiisa qiimo ku lahayd dadka inuu ilaahay ku xidho ayuu doonayey waayo hadday bini aadamku aqoonta adduunka taalloo dhan ay bartaan oo ilaahay aynan baran may khasaareen mise way liibaaneen bal iga jawaaba haddaan ilaahay barana ka warramo wax kale aanan haysana waan liibaanay taabaa ka dhaadhacsanayd isaga naftu ha iska baxdo laakiin ummadaasi ha ka badbaada gaalnimaday ku jirto dadkii meesha joogay oo dhan waxa ilaahay ka dhawaajiyey inay wada yidhaahdaan aamanaa birabbi alghulaam ayaan rumaynay yarkaa yar rabbiga uu xaggiisa noogu yeedhayay baan aamino rumaynay annagu waa qof keliya ayuu boqorku uu iska dil mujtamacii meesha joogo oo dhan ilaahay wuxuu u galladaystay inay noqdaan wada muslimiin wada muuminiina muraadkii uu ka yar lahaa ma gaadhay mise ma gaadhin wuu gaadhay isagii laakiin uu dhintay isagu jannuu galay janno laanna shahaada ilaahay siiyey qoomkiisiina ilaahay hidaayad buu siiyey waxaa adduunyada loogu jeclaaye bini aadan u jeclaa buu ilaahay dartii u huray ilaahay maadaamuu diintiisa naftiisa u huray qoomkiisiina ilaahay hidaayadii ku galladayso u hanuuniyey boqorkii uu yaabay madaxuu qabsaday markaasuu yidhi or waxaan ka digtoonaa baa dhacay waxaan ka taxadirayay baa dhacay oo muxuu ka taxadirayay dadkaasi inay isaga ka go'aan oo ilaahay ay ku xidhmaan boqorkii
markaas askartii baa ku tiri dib male waan haynaa dadka qofba kama bixi karo dhulkan jeexaynaa saliid baan ku karkarinaynaa kulul qof kasta waan dul joojinaynaa qofkii diinta islaamka ka noqdana waan ka tallaabinaynaa qofkii diinta islaamka ku adkaystana waan ku ridaynaa saliid karkaraysa ka waran oo qof bin aadan oo lagu tuurayo qof kasta waa la keenaa ka noqo diinta islaamka kama noqonayo waa lagu tuuraa qutila asxaabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد سورة داسويان تفسير كي سورة البروج حديث السورة شرحيا قف كستا لك أنا كن نقول دين تادا آمنتي ما كمان نقول يقول ربي جاي آمنا دانا من كن نقول مايو والله قطورة مركز وصليت كركرة يسقف قال له قطورة ضبي الله فوق كلا بحيا إسلام وحالة كان المهجي النوجين يسبوا النبي يقول عليه الصلاة والسلام مركز قال له يقول كن نقول دين تادا آمنتي يا ربي جانا آمنتي كن نقول كمان نقول يا بيتري مركز قال هاي كودا مركز دبك يزدول تاعتك أولكي أي نحدي جوك ستيبو رسولك يقول نفتيد ومع عبسنا بالله يري وحيو عبستي المهيج الناس كأي نوجينيس المهي يرى الناس كون نوجي مسكين واحد ماشى كده عياره ما هيسوى المير انتو كقاعدة أفكيبو إيه هو يدي مركز الهويو حق بات كنت عاجن تي كل عبو يدي المو قرمه هلا هالقرمه هذا كبلعبا لا بس أنا بركي لا عارف هذا كانوا نوجي يا الناس يرضع سدي أمه هل مركلي أنتو كقاعدة بالهويو حق بات كنت عاجن تي كل عبو يدي مفسرين تو حيدا دين يركاير النفتي سأهري دين تدرادد تضباطا كن أقوم كيسا أيا سبب تيس دين الإسلام كقول صوغ الشيء قصة روحانو صوغ هذا يا وندقو درير عليه هذا مسلم كون إنه وحب بدلال لدونا يا مسائل لبدلو مجتمع مانت إسلام كا ملك استأدوية أي جوغان ما وحبان بدلون عالم كو سو كردني او دقنك اسلام كان ادونك كو فيدنو انك ددك بدلي مس انك علينا بدلي اريال بدل بالشيء dhalinyaradeena magaalada Hargeysa ka soo qaad Hargeysa Djibouti isku mid baan nahay dad cad oo gaala inoo ma yiman hadana dhalinyaradeeni daawashada ay shaashadan ay ka daawanayaan dhaqanka gaalada miyaan ku saamownay mise dhaqankeennii bay gaaladu intay daawadeen ina ka bedelay baliga jawaab mid baa yidhi baryahan sheekh waxaad wacdiga ku dartaan dhalinyarada dhafoorada xiirteen kala hadla waxa yidhi kuwa magaalada anu lama yaabo ma ku yidhi waayo geel jiro waxaan arkay dhafoorka xiiran maanta waxa kale ka magaalada jooga markaa geel jiri baa dhafoorka xiiran bay marka walaalayaal wiilashayda la daatihiina waxaan ilaahay مسلمك وين وحب بدلوا يعني إلا بدل ما حبر شدنا كود دالة وانو بهنا إنه حلا برتو إنه قفك مسلم كود اختار نقضو إنه إنجنير نقضو إنه بروفيسور نقضو إنه متعلم نقضو وانو بهنا هاي لكن وحاسو وحا أساسه وإنه قفك إلهي سكعب صد إلهي كحنا هذا إلهي كعب سونين وديماني الله كعب سلهين وإلهي كو أبو رئانة قرنين دبلوم كان يا ديجري كان يا شهادة أنا قادنا يسد وعما كو كرديني ما يسوقوا وورقضهم وحدتك كقدر يا وأخلاق ذادا وحدتك كادجا يا وأخلاق ذادا وحقف ونكسن كادجا يا وأخلاق ذادا أخلاق ذا سنة وأخلاق ذي دين تين الإسلام كاين والله تمدوه يعني إن شاء الله هذا سعودي أرمني إن شاء الله الله ينوفقه